maalmo yar ayuu adduunka joogaa sida hooyadiis ayuuna u hadlayaa asagoo ku hadlaya kelimooyin xuska alle ah. Ha dhaafin muuqaalkan adigoon shargarayn. haddii aad muslim tahay falowna na soo dheh. assalaamu calaykum walaalaha ku xihan mubaarak baahiye. waxaan ku maqashii doonaa hadal mucjiso ah. wiil yar oo maalmo un joogay adduunka oo tasbiixsanaya malaayiin muslimiina hortooda. waa mucjiso aad u weyn. soo dhowaada. ilaahay waa midka abuuray kownkan, shay kastana wuxuu ku tasbiixsanayaa magaciisa, laakiin ma fahmayno tasbiixdooda. maantay waxaan idiin soo bandhigi doonaa codadka carruur badan oo tasbiixsanayda ilaahayna xusayda. waana mucjiso aad u weyn oo markhaati ka noqonayda islaamku inuu yahay diin sax ah. laakiin codsi intaadan muuqaalka daawan, like saar, channelkan subscribe saar oo gambaleelka u furo si aan u ogaano tirsiga muslimiinta daawatay muuqaalkan. siina sheergaray si uu muslimiin badan u gaaro. muuqaalka koowaad. ilmo yar oo xilligii nuujinta ku jira maalmo unna adduunka joogay oo hadlaaya. taasina waa mid khilaafsan dabeecada oo la dhihi karo mucjiso. marka uu hindhiso cod hoose ayuu ku dhahayaa alxamdulilaah. muuqaalka labaad. ilmahan yar wuu hurdaayey. mucjisaduna waxay tahay inuu sameeyey wax ka yaabiyey hooyada iyo aabbaha. isla markiiba aabbuhu moobeelka ayuu diyaarsaday si uu uga duubo asagoo aabbuhu akhrinayay ashahaadada cunugoo hurdaaya. waxaa la yaab kale ayaa ah inuu cunugu fartiisa kor u qaadayay mar walboo la akhriyo shahaadateynka. waana mucjiso xaq ah sida ka muuqata hortiinna. muuqaalka saddexaadna waxaa ka soo dhex muuqday ilmo aad u yar, wuxuuna ahaa mid hadlaaya markuu aabbihiis yidhaahdo allaah. ilmaha ayaana ku celcelinayay asagoo ka daba dhahaya aabbaha. waxa la yaab kale ayaana ah inuu aad u yaraa. ilaahay waa midka wax walba awooda. beeni ama rumee, la yaab ama ha la yaabin. waana midka xayawaanada aan caqliga lahayn uga hadliya sida basharka oo kale. walaalkayga muslimka ahow ku soo biir channelkan oo hana dhaafin.